oo buura ayay dekada galeen 11 maxjarka laga soo daayay saacadaasina waa intay soo socdeen maxjarka iyo dekada labadii iyo barkii 2 saacadood bar ku jiraan wiishka ayaa xumaaday deedna ninka cabdiqani la yiraahdo ee xoolaha uga wakiilka ganacsatada hadii jeerna xoolaha ee khalasaadoodii wax oo dhan leh ayaa labadii barkii la socday Axmed wax weeyaan xoolihii aan kula markii hore noo sidaa waan raranaay wiishkii baa xumaaday marka labadii barkii bay maraysaa imika la sameeyay maxaa talaa ana imanay sug baan ku yiri dekadii baan tagay wiishkii baan arkay xoolihii may wax galeen baan ku doonta waa ma yeeydadeen saacadu waa 3 oo rubuc la anu markaa awood waxaan u leeyahay waxaan eegayaa xoolahan xuquuqdooda iyo in qoraxay ku soo baxayso iyo inay wada rarmayaan qiyaastooda aniga ayaa la cid kale la weydiin maayo waxa kaliya oo la tashi kala yeeshay nimankii geelahan ku yiri idinka shaqadan raraya xoolahan 6 ka hor ma dhameyn karnaa ma yeeydadeen Isuduwaha ma dhameyn karno waayo imkan saac waxaan tagnaa suxuurtii ilaa 3 barkii shaqadu noqonaysaa 4 saacadood baan xoolahan ku rarmayay ilaa 4 saacadood ilaa 5 saacadood bas hadaba go'aanka ana marka halkaasaan ka qaatay xooluhu mar haddaanay doontii neefna fuulin dhakhtarku wuxuu awood u leeyahay intay xooluhu doonta bartankeeda ay ku kala gooyi lahaayeen ama wiishku fadhiisan lahaa wiishkiina aanu wiishka loo istaanbiyo markaa u diyaar aanu joogin emergency waxaan qaatay xoolihii in xeradoodii lagu celiyo iyagoo bad qaba waxa kale oo aan tixraacaya kelmadii yiri xoolaha tixgelin gaar ayaa lama siin buu yiri waxa halka waxaan idinka cadeynayaa xoolaha markay 9kii ahayd doontii la saariyay waxa yar alaaba ku harsaneed 9kii markay waxaan ku yiri ninkii wakiilka ahaa Cabdi Cali xoolaha si caawa malaha idin rarmi maayaan waxba soo deynina Cabdi Cali way la qaatay ninka Cabdiqeen la yiraahdo ee xoolaha ka wakiilka ayaa yidhi culays baan saaran maxjarkii xoolihii buuxa geel badan baa ku jira loo badan baa ku jirta doontaas anaga waxa noo fududina caawan dhaafto mar hadii caafimaadkeedii waxay dhamaaday okay tixgelinta aanu sinay way xoolaheeda way xoolaha anaga leh waa ka naxayna inay dhoofaan khayr baan noogu jira way waxa doonta baxda waa doon culayska naga sii qaadan Cabdiqani waxaan ku leeyahay hadaba xoolaha 11 baad ka soo deynaysan maxjarka marka taasina waa feebarka aanu sameynay waliba DB wal ninka la yiraahdo Cali waxaan ku yiri waxaan isla garanay ninkii wakiilka xoolaha ka ahaa caawa doontaas inay naga raranto marka waxayna wishashkii wixii loo diyaariyo marka force major dhacay waa ka bahasha cilad baa ku timid waxana wiishkuna wax ilaahay sameeyay wax ilaahay un baa garantiina wax bila aadna sameeyay demeel u gaariye ma laha maanta waa idinka arkayo COVID-19 dhammaan wixii isgaarsiinahay oo diyaarad hay uu xiray waxa fadhiisii awood bimaa bila aadna baa sameeyay marka waxa weeyaan waxaan leeyahay ninka Cabdiraxmaan waxyaabaha qaar kood waa inuu ka fiirsado waayo waan dadka xoolaha dhoofinaya waana dadka ugu muhiimsan waana dadka ugu firfircoon kelmadahan oo kale ninka mukhalaska xataa waa kelmadahan ku hadal marka taasina waan ka waanaya eedaa soo jeediyay waa nin aan aad iyo aad u karaameeyo waana ganacsatada waaweyn ee wuxuu ka mid yahay xoolo dhoofka waana ganacsatada waliba maxjarka Barbara United sheerka kula waana ninka xoolaha ugu badan hadii jeer wakiilka oo ahay halkan cumaan u dhoofa waana aan aad iyo aad u qiimeeyo ismaalaan maanta warka inta leege beenta ayuu wax ku qori doonaa saxaafad kama aan filayn marka laga hadlayo dhoofka xoolaha iyo caafimaadintoodana wakiilka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kaluumaysiga waa aniga ayaa u jooga xoolaha isagu sidoo ku sheegay 15 saacadood ayay dekada ku xanimayeen buu 5tii galabnimo ayay galeen buu yiri anigu warka xaqiiqada aan idin sheegayaa